بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay 65 xaaladood. waxaa rag ah 41, waxaa haween ah 24. numberkaas 65 koonfur galbeed waxaa joogto laga helay 24 qofood. Somaliland 14 qofood. Banaadir 13 qof. Puntland 13 qof. Jubbaland hal qof. dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 sano ka yar waa 13, 20 ilaa 39 waa 50, boqolkiiba 40 ilaa 59 waa 20 qof, 60 sano iyo ka weyn waa 16 qof. tirada guud ee xaaladaha COVID-19 wadanka laga helay waxay gaaraysaa 1284. waxaa u geeriyooday 24 saac ugu dambeeyay hal qof. Ilaahay u naxariista. wuxuuna ku geeriyooday magaalada Baraawe, Shabeellada Hoose. tirada guud ee dhimashada waxay gaaraysaa 53. waxaa ka bogsaday 5 qofood. tirada guud ee bogsiga inta bogsatay waxay noqonaysaa 135. intii dhimatay Ilaahay u naxariisto. inta xanuunka la taalana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafiyo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mar walba ku adkaysanaynaa oo idinku boorinaynaa in cudurka laga hortago. ka hortagiisana waxaa loo baahan yahay bulshada dhan inay iska kaalmaysato, inay dhageysato macluumaadka wasaaradda caafimaadka, takhaatiirta iyo khubarada kala gedisan ay u gudbinayso. si cudurka looga hortago waa in dadka ay hal jaha uga soo jeestaan, in laga ilaaliyo cudurka dadka waaweyn oo xanuunada raaga qaba, in maaragtay gacmaha la dhaqdo, nadaafada lagu dadaalo, meelaha ciriiriga aan la tagin, guriga la isku xakameeyo. qofka hadduu calaamadaha dareemana uu raadsado dhakhtar ama goob caafimaad. waxaa jira nambaro loogu talagalay oo free ah dadka ay wacan karaan si macluumaad badan loogu siiyo. in la wada dadaalo ayaan isfaraynaa, taxadarka la badiyo, annagana aan iska ilaalino, dadka aan jecelnahay iyo bulshada weyntana aan ka ilaalino. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.